بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميل باجوكتين وحني الله سورة دواذا. Welcome to my channel. ما جعش هاي إناد مقدق أكو جرت أكسو بحديد. ما ربطا إنا عبادة ذا وحسكي بدلان. ما ربطا إنا مسكح ذا مسكح وماركتي وليفل سريسو أو مسكح very strong هشو. ما ربطا هدي إلهي سبحانه وتعالى أولاد أكوي أرساقي إنا أولاد هذا كوريش صح أسيسي intaa soo dhan haddii aad rabtid waxay kaaga xiran tahay hal shay oo aad si qalad ah u isticmaashid oo aad taqaanid inaad saxdid. shaygaas ma taqaanaa? shaygaas si fiican aa u taqaanaa. shaygaas gacanta ku xirataa. shaygaas waxaan ku dhahaa mobeelkaaga markaas sufurtu kuu soo baxaa. shaygaas tviyada waa ka aragtaa. shaygaas waa ku socotaa. laakiin in badan shaygaasi sax uma isticmaashid. shaygaas wax kale ma ahan oo waqtigaaga haddii aadan si sax aadan u isticmaalin maalin walbo oo ku soo marto ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu kuu siiyo jaanis inaad maaragtay aad wanaag bashid, inaad naftaada ku hagaajisid, inaad ilaahay ugu dhawaatid, inaad maaragtay dadka kugu hareereysan oo awlaadaad ugu horeeyaan ayaga aad maaragtay aad gelisid. marka waqtigaaga waxaa ku bixisaa wax aanan waxba kaa soo gelin. tusaale ahaan waqtigaaga waxaa gelisaa inaad maaragtay habeenkii oo kale aad laga yaabo intaad aroos aado inaad ka imaato xilli saamuleyl, hiblaayo casho qabto, casho faaraxa inta iga soo wacatay, inta cambaraa iga soo wacatay. guriga markaad joogtidna allahu aclam dee telefoonkaas maanta dhan waan ku dhaha xan iyo balaabalaa iyo wax adigu maaragtay dambi ma ogiye naftaada inay kobciyaan iska daaya naftaada maskaxdaadaba haleynayo aa waqtigaaga aad gelisaa. anoo taas ka duulayo oo aan ogaayo hooyooyin badan oo qurbaha ku nool qaarkood Soomaaliya joogaan inay waqtigooda si maalayacni ku bixiyaan ayaa waxaa rabaa faa'iidada uu waqtigu leeyahay iyo diinteena siday maaragtay uga hadashay inaad tusaaladan soo qaato rasuulka calayhi salaam nabadgelyo naxariisdiisa ahaatee waqtiga aad uga hadlay. hadalada rasuulka calayhi salaam waxaa kamid ahay firaaqadii caafimaadka in la kala ilaaliyo oo qofku markuu caafimaad qabo oo firaaqa haysto oo firaaqadiisi waqtigiisa oo wax geliyo. taas macnaheedu waqtigaaga inaad maaragtay quraan aqrisatid, inaad cibaadaysatid, inaad adduunkaaga u shaqaysato. waayo waxaa la rabaa aakhiradan inaa maaragtay sakinka soo socda inaad dhimanaysid waa inaad u cibaadaysataa oo wax u sadaqaysataa oo noloshaada waqti u gelisid. adduunkana sida inaad weliga aa noolaanaysid waa inaad wax u qabsataa, waa inaad shaqaysataa, waa inaad naftaada horumarisaa. marka waqtigan oo maalayacniga oo ku bixinaysiin please and please stop. haddii aadan stop garayninna mugdigaasaa weligaa ku jiraysaa. weligaa kama soo bixaysid mugdigaas ilaa aad waqtigan aad ka saxdid. marka waqtigaaga waxaa ku sixi kartaa oo aad inuu meel qaldan kaa aadin aad uga ilaali kartaa. tibiska aan ku siinayo aniga ugu horeeya waxaa waaye inaad tahay qof rutiin leh. rutiinka anaga markaan Soomaali lahay ma ku fiicnin, laakiin nolol aan rutiin lahayn waa nolol aan qurux badnayn. waa nolol aan disciplinekeeda uusan 100% uusan ahayn. markaa rutiin oo waxaa ku dhahay oo lifestyle aa leedahay, rutiin cibaadada aa leedahay, rutiin oo wax aqrisa aa leedahay, waqtiga ma kaa beerdaroobayo. ilmahaagan way kugu daysanayaan. cunugaaga xataa tusaale u tahay. ogow markaa waari tahay oo qof weyn aad tahay waxaa ogaataa dad ayaa soo saaraysaa. marka adduunka waxa ugu xun cunugaaga inuu tusaale xun oo qaato kaasoo meel kale uusan ka soo qaadan oo dad kale aadan u eeneyneynin oo adayga waaridka isku eeneynaysid.
marka haddaa maanta waqtigaaga aad ku bixisay ciyaar oo waxaa ku dhahay meel walba available u taho waxaa ku dhahay gacantaada hig dhow isii dhehaysid aaba soomaaliyeed adigana markaad howlahaaga haddii shaqo ama waxtaa soo dhamaystaa waxaa ku dhahay Soomaali istaag aad taagan tahay ilmaha aad dhashay hadduu wiil yahay hadduu gabar yahay motivation ma sii kartid waqtigaaga ka faa'iideyso waxbaro shaqo raaso horay isku wad ma dhihi kartid maxaa adiga waqtigaaga ciyaarkaaga soo lumay marka I know waxaan jecelnahay in tusaale fiican laga qaato marka si tusaale fiican looga qaato please and please jad waqtigeena maarta routine u sameysano I know mararka qaar inaadan dareensanayn inaa waqtigaaga oo ciyaar iyo malaacin uu kaaga dhumooyo laakiin waqtigu waa muhiim waxaan kugu dhiirigelinayaa waqtigaaga inuuna daqiiqad waa 60 second aysan ciyaarkaaga bixin oo aad waqtigaaga ka faa'iideysatid naftada ugu faa'iideysid ubadkaaga ugu faa'iideysid waalidka ugu faa'iideysid noloshaadana aad ku faa'iideysatid oo noloshaada maanta inta ayartaa waqtigaaga aad si sax ah u isticmaashid waqtiga si sax ah u isticmaasho wuxuu kaa caawin doonaa maskaxdaada inay maskax oo maaragtay kobacsan ay ku noqoto waqtiga si sax ah u isticmaasho wuxuu ku horseedi doonaa ina ilmo wanaagsan oo baariyaal ah oo waxa ku dhahay waxbarashadooda iyo noloshooda ku mashquulsan aad soo saartid waqtigaaga marka hadii aad malaayacniga ka ilaaliso oo aad waxaan ku dhahay waxyaabaha ku soo sheegay iyo tipska aan ku soo sii aqaadatid waxa ku noolaan doontaa nolol quality-geeda oo aad u sareeyo oo aad maaragtay aad ku raaxaysto ku enjoy garayso hadii laakiin aad maaragtay waqtigaaga malaayacni aad ku bixiso oo waxaan ku dhahay meel walba aad hilish oo sii tiraado hadii aad aaba tahayna waxaan ku dhahay meel walba aad taagnaatid maxaa dhici doono waxa kugu dhici doono waxa aan soo sheego dhan dhinacooda kale inaa koriisho qaldan aad gudbisid oo caruurtaada si sax aadan u korinin inaa naftaada waxa ku dhahay aadan horumarkeeda iyo caafimaadkeeda aysan waxaan ku dhahay hoos dhac ku yimaado diintaada in hoos dhac ku yimaado ilaa diinta in waqti la geliyo u baahan tahay wax kasta waqtiga u sababa diinta waqti u baahan tahay salaada lagu dukado lagu cibaadeysto u baahan tahay cibaadada waxay u baahan tahay waqti sidaas daraadeed marka waxaan ku leeyahay waqtigaaga ha ku ciyaarin waxaan kugu dhiirigelinayaa ama aan kugula talinayaa Monday ama Monday waqtigiina ilaalsada hadii aad rabtiin inaad horumar gaartiin wax kasto ma maqli jirto quraanka kufoon axad isku foqastay 3 qol wala daa aqris moogta xoo dhiganta adoo quraanka dhan aqriyo marka waqtiga ka faa'iideyso timekaaga si sax ah u isticmaal wigi mawduucii maaragtay dhiirigelinta ahayd waad la soo wadaagi doonaa insha Allah waa soo dadaalayaa waxaan leeyahay hadaa ka heshiin waxaan ku dhahay programkayga subscribe ta iyo like ta ha iga xasdinaa si share gareeya hadaa cusubtaan waxaan ku leeyahay subscribe iska saar lacag ma joogo